السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دودوينو كسر هذا برنامج كإسبي channel سيده هربانين كبرتين برنامج كمان إسين جديو أنا ويا مكوي إنترنت إسين جديو وطن كمريكا كجوال كفرمان استوديو إسبي channel. دودوينو برنامج كنا جيك سين هني أمريكا سابسينيا cadaalad Somali Bantu ka haysato magaalada Kismaayo gaar ahaan markii qof Somali Bantu dil la jeysado barnaamijkan arintaas ka falanqeeyana ku soo dhawaada. barnaamijkan geeg cadaalad Somali Bantu ka haysato magaalada Kismaayo gaar ahaan markii qof Somali Bantu dil la jeysado in asaga cadaalad in haloyn iyo geega maysan ka qaadanay sidii uu dhan wada ogna dhalinyaro far badan oo Somali Bantu ayaan xaq dar oo gardara magaalada Kismaayo lanka dili hal qof oo Somali Bantu ayaa oo dhalinyaradaas la dili kamid ayaa oo cadaalad magaalada Kismaayo ka xali yab anjirayno kulli sho may cadaaladiyo la ku dhumiyay in qofkii oo Somali Bantu dili in asaga lihire la dhaho oo hamiinkii tartiib kala dhuumisiyo iyo dhalinyaradaas la dili dadsho in ayaga ulees la ka saaro in iyo mag aadan dhalinyaradii Somali Bantu ahayaan horaan la dili cadaaladiyo saas iyo lan ku tumadi haddana may fado in asli fiirsino maamulkii Ahmed Madoobe cadaalad Somali Bantu ka haya shalay taariikhda ahayd taariikh 22 iyo 3 qof oo lama guud la ayaan oo markaas kiisiyar shil duwan ayaga ka saceeday in ko oo maana la dhahi naagta sadiri iyo kuwa ciidan dileen la dhahi wasaas dil tuugasho lan ku xukumi ayagoo markaas dil tuugashada la ku fuliyo oo tiirka saaranyan isla fiirsaneen dadweynaha marka hore raggan oo ku eedeysnaa dilal ay ka geysteen magaalada Kismaayo ayaa ka kala tirsanaa ciidamada booliska daraawiishta iyo nabad sugidda Jubbaland waxaana hore gacanta ugu dhigtay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Jubbaland kiiska eedeysanayaasha ayaa soo maray marxalada kala duwan ayagoona marar badan ka soo hormuuqday maxkamadda waxaana ugu dambeyntii maxkamaddu soo bandhigtay marqaatiyaal cadeemo muujinayay xaqiiqnimada kiisaska loo haystay raggan maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Jubbaland ayaa toddobaadkan gudihiisa xukun dil ah ku riday eedeysanayaasha kala ah Abdullahi Asad Ismaaciil oo loo haystay dilka xaaskiisa Cabdirashiid Axmed Xasan oo asna loo haystay dilka qof shacab ah iyo Aadan Cabdi Muumin oo ku eedeysnaa dilka askari kale oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda Jubbaland madaxda ugu sarreysay ee Jubbaland ayaa hore u sheegay in sharciga la horkeeni doono qofkii ay dawladdu ku soo heshay dil xaq darro ah oo u geystay qof kale Faraxiis Cabdi Jubbaland TV magaalada Kismaayo kulli aragtayna aan badiye maamulka Ahmed Madoobe magaalada Kismaayo cadaalad Somali Bantu ka haysato in si faylan aragtaan aan badiye dadkan hadda oo dilku toogashada la ku xukumi oo la dhahay qaar ciidan la dileen koona naagta sadili la dhahay horta ilaahay nafta si isku wada mid umba dadka sangaliin laakiin oo musto umba isto shil bedeli dadkona jiriira ku weelisan showbiinyo dadkona jilaa ku weelisan shudhuubanya laakiin nafta si isku wada mid iyo dadka bini'aadanka dhan ilaahay ingaliye nafka faylanta ma jirto laakiin qofka hadii asaga ku awood wiinyo markaas ma imaleeye nafta in tiidas asaga ka qiimalat taasna marka ma sheenoyo way gurigaas asaga markaas gacanta ka haysada iyo magaalada Kismaayo in asaga ka taliyoy taas aan ku wacantoy dhibaatooyinka oo dilka ayaan oo dadka Somali Bantu lan jeesadooyina Kismaayo kelima ka agyan guud ahaan wadanka Soomaaliya guud ahaan iyo ka jiran markii la kareebo Somaliland keli laakiin intii kale hatta kelinka shanaad ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo Somali Bantu dil oo gardare oo bareer cad lanka jeesadooyo way hadda wal qobadaas iyo maxkamad cadaalad unsuubiyaasa iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya aan ka jirayno way anagana Somali Bantu ana sankayna guinya tentayna jirir ata sankayn iyo tentayna ya geega mayna ninka iko in anaga ana dad oo dambiile sababtii hadii tentaba jirir ata oo sanka guinya ada dambiili ata dambiilna may ka ata tenta jirir ata sanka guinya ileen anaga marka guud ahaan dadka Soomaaliland fiiriyo anaga ka qabduuna way anaga may ka qabduuna tentayna jirir ata sankayna guinya laakiin dadkii kale oo lama guudada ayaan ayaga dhanba in isleeyaan way
qabiilka umba ka shal dugnada koran uma ogmaayeen qaab ahaan ayaga dhan isku wada mid way hatta haddii ay rabaan qabiilkii rabaan iyo sheegado koran way may ka shal ka soo dadka kala laakiin anaga ka basan way anaga tintayna jirir ata sankayna wiin marka tintayna jirir ata sankayna wiin iyo may ka naganay in anaga dambiil ah oo geegal waayo qof anaga ah dalad nin suubiyow in guud ahaan wadanka Soomaaliya lagu waayo kiina dilo unu ogmaaheen qof ahsan nin suubiyow oo adaalad nin suubiyow ya oo dilkan hami imaalan nin jeesidoyo qof adaalad ahaan la dhagamaw iyo injirayna dadkii dhan meela nagadeena qofkii qof dilo in tartiibku asaga hamiinkii lu dhuumusiyo oo hirinyo la dhaho ya in dadkii oo la dili dadsho in ulees la kasaaro in ayaga maqaadadan dadkii dhan basaasa nagadeen adaalad ma jirto guud ahaan wadanka Soomaaliya gaar ahaan handana magaalada Kismaayo ilaa yarkii hadda ka dambeeyay magaalada Kismaayo la ka dili oo mudaharaadka Somali Bantu magaalada Kismaayo ka dhikaayeen yarkii ku horooyay oo la dilay ninkii dili inta la saqobadii maamulka Axmed Muduwi saqobadan iyo hirin tartiibkan hamiin lameelo dhuumisi Itoobiya iyo meelaha salan dhuumisi adan meelkiin ka sheeko inay hirin kii kala inka dambeeyayna in dad soo ayaga ulees la ka saaray in ayo maqaadadan ilan maamulkii ba hadii asaga ulees ko saaro in aad maqaadato ya maxkamadda adaaladda la dhahoy badii ay ulees ko saaro in aad maqaadato yarkas aawsha ani in waram yarka inka dambeeyay in asaga maqaadadayna go'aanshe ahay laakiin qof kasta ba hadii ulees ko saaro in aad maqaadato ka qasbanta shiriintaada wala suubi korto male hatta kubigaan ahaayeen oo marka xilwaanyaalka iyo wasiiriyaalka iyo suldaanyaalka iyo odayaalka ahaayeen hadii iyo naftirsho bandana ku dhaxooyaan maqada qaado ku dhaxooyaan ulees ko saarooyan oo iyo maamulka Axmed Muduwi sadirooyo oo la dhaxooyo bad qofkin inseeda sikara dhaasiya in asaga maqaadado la dhaxooyo oo qof oo garab ka surmo lahayna ka qasbanta markas maqinada qaadato ka qasbanta wal suubiyaas male ilan hadii aad maqaadado wayto meel aad ka shaqaysadaas male magaalada Kismaayo ba sidii aad ka deganaato ba iyo adagto way hadii aad maqas qaado wayto ilan cid kasta iyo ku adaadiyoyd in aad maqaadato iyo kuwiyo hadda Somali Bantu ayaan oo maamulka Axmed Muduwi ka jiran iyo ku adaadiyoyd way marka qasbanta in aad maqaadato oo caalamka la dhaho maga qaadeen lagu dhaho ayaga saasadan ka jirta ilan qofsho in ayaga dilan qof hadii Somali Bantu dilo marawan way laakiin hadii ayaga dhatiyo isdilan sidan oo kale iyo qofka maxkamad lan sitaagay way oo dil toogish lan ku xukumay way ilan hada kuwan hada dil toogish la ku xukumi nafa gooyen ki Somali Bantu la dilina isla naftas oo kale iyo asagana ka jiraayta la gooy laakiin ki Somali Bantu nindan ihaaji kala yimale hadii ayaga dhatiyo lama good isdilan dil toogish isku xukumay laakiin ki Somali Bantu hadii la dilo ملك أدادية إن أسق مقعده أما نينكس إنها من لمي لهيري لروها من لمي لمسيو الدالة يالي وميلس مركز قوفة سكين حرفة ليدا ميك اللي أنا قدوميها معناها محكمة الدالة أي الدالة ما يالي ميلس دولة فدرالك بقى الدالة ما كجرتو فرما جواكي أسق الحي والدالة شيئا كان أسوبية إلا حد محكمة الدالة أسلسية بإنجراين بقى فدرالك بقى الدالة ما كجرت ما معمول قبل إسكاف فدرالك اللي كديسدو لفضاي بدي الدالة إنكجراينا معمول قبل مركز ما يسوبيه ويسا كوروكسيدي إلا أن هذا الشخص أحانتي ودن كصوماليا دولة جرت دولة فدرال جرت الله أنا يا بني با دولة فدرال هجرت دولة فدرال أنت كتليويت أين أوكي ما ين أمرك بيكورتوي إلا معمول كإبادة كوهاي بهدي أسق إنس هاي سدا نترشب إن أس الدولة أيوه ciidan shay haysada oo wadanka usrabo seedo kor oo heshiis ila galo kor inay haysada ya farmaajo kuwas may ka qaado kor dibata ka sadii adlo ko haya farmaajo may kiin ku gobado kor hatta la waramo kore hadii la waramo may bal dhahoy ada hariirka dhanaba kiin shafni ba ona dawladda federaalka Somali Bantu geeg horta cadaalad an hayt wadanka Soomaali gudaashay ma jirto sidoo runtii hadii lan hadalo laakiin hadii sidii been lan hadalo Somali Bantu adaalada ka haysata wadan adaalad inka jaraayna nabadgelyo may kiyaabo ina qoyto
ilaan admay fadoyta cadaalad dara ina nabadgeli ka dhaliido taas ma anfaas taas wal suurta galaas ma aha dada maquuniye dada qortiyo ama madasho dhulka ka reebe nabadgelina fade taas ma anfaas suurta gal ma aha wadanka Soomaaliya dadka ku noolyan dadka dhan may wada sameeyo dadka qaar may dhaayaan arintaas ma jirto laakiin wal kastaba banaanka yaalo qofka hadii asaga diido wal asaga aragoy dhinaka maroy way Somali Bantu cadaalad dar ina meel kasta ka haysato dhanankii oo xalay la dhaliyo ogyo laan kiiga ahay oo iyo dhatiyo isdileen dil toogashi ku xukunti kii Somali Bantu hal an hayna lam an hayna saddex an hayna afar an hayna shan an hayna oo la dilooyo ya oo walna inaan qobodoyno oo mar kasta ba dhahoyd macnaha maqdaado ya ama tartiibko inaad dhumusiido aad ka shaqeeyoyto meelas cadaalada yaale way dadkii hadda geega wadanka Soomaaliya madaxda la ka dhiki baarlamaanka sabila wasiir kihiji ama kuwan oo hadda oo gudoomiye maamul goboleedyalka ayaan laakiin ayaga madaxweyne iska tilmaameen asal ahaan ama taariikh ahaan waa dad ayaga dagaaladan hogaamiyayeen koox oo qabiil ee dad hogaamiyayeen way oo Somali Bantu nafta insheenay kuwaas hadda geega madax la keen ku weeli marka kuwaas cadaalad iyo ku sugooytay way dad in iyo cadaalad iyo kiinsheenan qofka hadii la dilo in asaga cadaalad xalo iyo ku sugooytay way sidurunti kuwaas cadaalad ma ka xalaas ilan dadka Somali Bantu sidii lan dhibaatayo ayaga ka saayanba aadiya ban leeyambo intan hadda maamul gobol oo madaxweyne ka ayaan halkuwi baarlamaanka ma wasiiriyal kulli waa dad Somali Bantu dad oo dhibsho si faylan ka saayan sidii lan dhibo oo ka saayan oo aqoon ban leeyambo ilan ayaga walaayi baarlamaan iyo wasiir iyo madaxweyne maamul gobol iyo walaayi ka nagadeenbo idkii Somali Bantu leebay iyo qalaasaha ayaga Soomaali iyo ku wadaayeen oo kooxyaalka qabiiliyalka hogaamiye jireen sidaas laba ka nagadeen muumaan Soomaaliya qof geeg iska dareera sidoo runtii mufadada in asaga si walka nagado laakiin dadkayna badi may mudaayeen farmaajo markii asaga madaxweyne nagaday in Somali Bantu wal anqobadaw sidoo runtii ninkaas marka horba go'aansho mahayn in Somali Bantu wal anqobado go'aansho kaliya ahaayay in dadka cod macaan asaga dhiijiyo sidii asaga madaxweyne nimanka doorada lahaay go'aansho inta soo baahay bogmaan go'aan Somali Bantu wallan ku qabadeen nin wadaday ma ahayn taasna may ka fahmo kortay hadda madaxweyne intii asaga nagaday sanad iyo wala jiro way hal maalin aran Somali Bantu dhan kasta baan ka saabsanaato hal maalin intii asaga media ama idaacad surugsidii wilisha man ka hadalno hatta hoos ahaan hatta wala dhigiya ban jiraan wal Somali Bantu ka saabsan Somali Bantu aati aad taageereen ilaa hada sheeko may diirtay farmaajo injiyo hada hadii geeg us farmaajo us ahaynin nin cadaalad us ka shaqeeyo may suubi lahaayay hay'ado oo cadaalad oo federaalka ayaa dhis lahaay ilaa hada maxkamadoogi oo cadaalad ilaa hada farmaajo wal ma qoqoban marka kusugudooyne way geeg anaga wadanka Soomaaliya in anaga cadaalad ka halno farmaajo onisiyo oo sidii hore anaga ka jiraan in asaga walka bedelo kusugudooyne way dadkan oo hadda dadka dileen oo dil toogasho ku xukumay dadkii oo la dilay dad soo urugsideen ama suldaansho ama odayaalsho ama qabiilsho iyo urugsidii waxay la may dhehena qofkayna qofkii dili waa in asagana dil toogasho lagu xukumo maamulka Axmed Mudoobe sidaas iyo ulees la ka saaro ama federaal hadii ay sidaas iyo ulees la ka saaro laakiin anaga odayaalkayni weeyno suldaanyaalkayni weeyno wasiiriyaalkayni weeyno suldaanyaalkayni odayaalkayni wasiiriyaalkayni ayaga bananinsa adeegsadooyba in anaga maqaadano ad ilaahay ku soo marka ay keen maqanyi way oo dawlad federaal ama maamul gobol ay keen ka jir way oo keen dooda oo xaqaskeen dhaasiye way ilan asaga ba hadii wal dhiyo ba asaga balkiin sidirsadooy ada oo dadkin ka adaadiya ina iyo maqaadadan oo isagna qeybtin meel ka halan ayaga basaas la kala dhaasiyooyo ay keen maqanyi way ilaahay ku soo id ma keen maqanta laakiin anaga dadkayna hadda Kismaayo roogan iyo Muqdisho roogan intii ayagu group bursadooyan iyo aan dunyada dhaafas intii iyo group saas bursadooyan oo inta minanka dhisadaas intee horumar ku soo biyaas intii ada
xilkan ad hayt iyo isdhaqooyan sidii runtii adduunya dhaafas marna haddii adduunyada ka dhaafto ilmoogeeda dhali kubisii dhalen iyo markas may nagadaayana dad oo dhul aan lahayn sababta ee adaba ku weelay dadkas dhul la'aan ya adduunyadan hadda dhisanta oo hadda ku horay wadanka Mareykanka geegu hornimadan iyo nabadgelyada lagu noolyo dadaasan dagaaltimi dadaasan rafaadi sidan hadda laga jira aarankan iyo barwaaqadan iyo nabadgelyada Mareykanka diyaala dadaasan rafaadi marka haddii aad dadka nin rafaana diidase way wiilashu dadka dhibaatadaas una ka jiraya diidase jidka dhibaatadana adaba u furtay marka walaalaheena Somali Bantu ayaan oo Kismaayo iyo Muqdisho ruugan oo dadkan Somali Bantu Jubbaland Metloyn iyo Dhahoyan ayagoo dantiyo gaar fiiriyoyana dadshon gargaaro koran ma aha wal kastaba in aad ka dhigto danta gaarka ee ma aha ilan wadanka Soomaaliya nin kastaba dantisa ruugo loogi madaxweynaha ka bilaw ila kinku husooy dantisa ruugo balaakin hindan ayagoo saas ayan iyo handana marmarka qaar shaqo ay wadooyin la aragooyo laakiin anaga kubiinana dantiyo uma dan kala ma jirto taasna horta horumar may ka diiraw ka dambeeskana oo la'aan fadhiyadas qofka asaga waqti shada ama generation shada maadayo laakiin kubiyada dhali iyo kubisi dhalan ya dhul la'aan ka dhikaas weeyada ilan ada meelina masafarayoyt meelin dhax fadhiya Somali Bantu walan ayaa dhahoyt Somali Bantu wal man qobodoyt hami imaalan san dhibaat iyo ka jiraan marka diidase weeyada Somali Bantu in geega dhibaatadii aad ka shaqeeyoyto oo Somali Bantu horumar shaqo ruugsadooyta diidase way qof walaalka hadii magaalada Kismaayo oo geega la ka dilo in hadal qorayna oo xaqshisan ka dhaasi qorayna oo madax ad qofkii kalna wala mugoodada iyo dhati iyo isdilangna cadaalad iyo halooyan oo dil toogash lagu xukumoyo oo adan wal kasta iyo goobjoog ka ata sida runtii taas bini aadanimo ma aha qof shan in asaga saas ka fiirsadoono sida runtii nasiib dar aad inta way guud ahaan Somali Bantu meel kasta aan dunyada ruugan ilaahi ku sukow dhibaatadan ayagoo ba iska saaro koran qofka hadii asaga baay hayt dhan ana baay hayt sida runtii wal asaga aamo mahalaw anagana geega dhibaatadayn taas iyo limadaata hadii anaga qayladaan aan dunyada meel kasta aan diirsana oo dhibaato kasta dhibaatadii anagana haysata hadii uu baraanka san dhigna geed dheer iyo geed gaaban oo dhibaatadayn in korna meel aad dhibaatadan in anaga ka baxana niidaynin in anaga ka saarno in anaga farmaajo walneen qabado farmaajo dawlad federaal madaxweyne ka ay la dhahoy inuu afka u maahin sidii runtii wadanka Soomaaliya intaas dawladooda ka dhisantay oo geega dawladda federaalka aan aqoonsanayn marka siin barbaniidayn imaan kayn horta taas ka hayneen marka insha Allah dadino barnaamijku geega siin hayn higiya ka agya barnaamijkan ay siin jidee aniga ee Mukuy intana siin jidee wadanka Mareykanka gobolka Furmaan studio SP channel markale iyo sidan oo kala hawad ku wada kulmo doon hadii Ilaahay dhaho sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Somali Bantu Seki hilmame adaye awkayba laga dhalay seki hilmame anaba loo dhalay oksinya seki hilmame rafat isamarnibo oksinya seki hilmame dadkani weli ka jiran oksinya seki hilmame